السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا وركسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu xasaasana inaga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socotaan bahda TV qodobada aad daawan doontaan waxa kamid noqonaya meedka laba caruur ah oo u dhalay xildhibaan hore oo la soo dhigay duleedka magaalada Baydhabo iyagoo lagala baxay kiliyaha iyo beerka wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga hayaa qodobada sidoo kale waxa kamid noqonaya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo si kulul uga hadlay fashilkii ku yimid shirkii afisyooni ee shalayta lagu kala tagay duqa Muqdisho oo shaaciyay in aqalka sare lagu dhisay bob iyo sharci darro sida uu hadalka u dhigay askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qarax khasaare geystay oo isla gobolkaasi ka dhacay wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga hayaa kiilada beesha caalamka oo baaq degdeg ah u diray madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee la safan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muxuu yahay baaqaasi waardii soo gudbin doona saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal idinku haya xogii ugu xasaasana inaga soo gaaray Soomaaliya waqti wacan ayaan idin rajeenayaa واتهاي داوديل هدي aan ku bilaabo meedka laba caruur ah oo u dhalay xildhibaan hore Sheekh Aways Cabdullaahi oo ka tirsanaa baarlamaankii Soomaaliya ayaa sakayto laga helay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya caruurtan oo la waayay shalay galab xilli loo diray dugsi Quraan ayaa lagu soo waramayaa in dib loo helay iyagoo meed ah isla markaana loo dilay si arxan darro ah qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in caruurtaasi oo kala ahaa gabar iyo wiil lagala baxay kiliyaha iyo beerka kadib qaliin lagu sameeyay sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in dhacdadan naxdinta leh ay dadka markaasi ku abuurtay walwal iyo walaac aad u xoogan taasi oo markaasi aad looga hadalhayo guud ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dhinaca kale laamaha ammaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa haatan wada baaritaano dheeraad ah oo lagu badigoobayo dadkii ka dambeeyay falkaasi waana dhacdo ugub ku ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dadka deegaanka ayaa si weyn u cambaariyay falkaasi arxan darrada ah ee lagu la kacay caruurtaasi aad ka u daadayar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Cumar Finish oo la hadlay wariyaasha ayaa sheegay in markii horeba dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya loo maray si sharci darro ah sida uu hadalka u dhigay Umar Finish ayaa shaaca ka qaaday in aan loo marin hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 isla markaana beelaha qaar la siiyay xubno badan halka kuwa kalena lagu tuntay xuquuqdooda isaga oo carabka ku dhuftay inay tahay cadaalad darro hore loo sameeyay sidoo kale waxa uu duqa Muqdisho tilmaamay in dad leh dana gaar ah ay aqalkan ku dhiseen si degdeg ah oo bob markaasi uu ku jiro si kastaba hadalka ka soo yiri duqa magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya xilli gudoomiyaha gobolka Banaadir ilaa iyo 13 xubnood laga siiyay xubnaha aqalka sare oo ay markaasi ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa xalay uga digay madaxda Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed in ay ka tagaan magaalada caasimadda Muqdisho kadib markii ay shir gaar ah ku yeesheen xarunta qaramada midoobay ee Xalane sida aan xogta ku helnay shirkaasi ayaa looga wada hadlay sidii loo badbaadin lahaa fashilka ku yimid wada hadaladii loogu gogol xaarayay shirweynaha wada tashiga ee xalka looga gaarayo khilaafka doorashooyinka ila ku dhowdhow shirkaasi ayaa waxa ay markaasi u xaqiijiyeen bahda TV in madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay fashilkii ku yimid shirka ku eedeeyeen madaxda Jubbaland iyo Puntland iyaga oo wakiilada beesha caalamka ka codsaday in la fasaxo si markaasi dib ay ugu laabtaan deegaanadooda wararku waxay intaasi ku darayaan in xubnaha beesha caalamku ay ka diideen madaxda saddexdaasi maamul goboleed dalabkooda ahaa in la fasaxo waxaana lagu wargeliyay inaysan ka tagi karin magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana garabkii shirka ka baxa loo aqoonsan doono qaswade wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa in sidoo kale maanta ay la kulmaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo dowladda federaalku ay ku eedeeyeen in ay markaasi fashiliyeen shirkan inkastoo ay iska difaaceen eedahaasi dowladda uga yimid shirkii tandhada afisyoone uga socday madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa shalay fashilmay waxaana xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay in Jubbaland iyo Puntland ay shirkaasi fashileen isla markaana ay diideen wax kasta oo xal ah hase yeeshee war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen Jubbaland iyo Puntland
waxay ku sheegeen inaysan ka warqabin shirkaasi fashilmay balse keliya ay ka warhayaan in madaxweyne farmaajo uu dalbaday in la tashiyo lasoo sameeyo maalmo cayiman. madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxa ay markaasi caddeeyeen inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka iyo sidoo kale xalka markaasi lagu raadinayo ila ku dhow shirka dhex maray xubnaha beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in beesha caalamku ay culays ku saartay madaxda saddexda maamul goboleed inaysan shirka ka bixin maadaama ay markasta markaasi u hoggaamsamaan go'aanka markaasi uu qaato madaxweyne farmaajo. waxaa haatan bilowday dadaallo ay wadaan beesha caalamka oo lagu doonayo in shirka hogaamiyaasha Soomaalida oo sii socdo ilaa iyo xal laga gaarayo khilaafka doorashooyinka dalka. labada dhinac ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo khilaafka markaasi inta badan uu u dhaxeeyo ayaa hadda midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa in uu fashiliyay wada hadalladii Afisyooni ee lagu gogol xaarayay shirweynaha wada tashiga. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka sii daraysa ee doorashooyinka dalka kadib fashilka ku yimid shirkii ka socday Afisyooni. Cumar Cabdirashiid oo haatan ka mid ah senatarada aqalka sare ayaa waxa uu sheegay ujeedada laga leeyahay fashilinta wada hadallada doorashooyinka dalka 2022 ay tahay muddo kororsi la doonayo in loo sameeyo hay'adaha dowladda sida uu hadalka u dhigay. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka digay in muddo kordhin hor leh loo sameeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo markaasi aysan jirin heshiis siyaasadeed oo taageerayo arrintaasi. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray haddii la qaado wadadaasi iyada oo markaasi la iska indhatirayo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro ay keeni karto xasilooni darro iyo sidoo kale kala qaybsanaan. hadalkan Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay ku kala qaybsameen wada hadalladii gogasha lagu xaarayay teendhada Afisyooni shirka markaasi ugu dambeeyo madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada la doonayay in maalmaha soo aadan ay ku yeeshaan. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal xooggan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabelle. wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Buurane halka loo yaqaan waxaana xigay iska hor imaad foolka fool ah. ila dadka deegaanka ah ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ciidamada militariga Soomaaliya looga dilay ugu yaraan 2 askari laguna dhaawacay tiro intaasi ka badan. sidoo kale wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in dagaalyahanada Al-Shabaab ay muddo kooban la wareegeen gacan ku haynta korontaroolka uu dagaalku ka dhacay iyaga oo markii dambe dib uga gurtay waxaana ay markaasi halkaasi ku laabtay sida la sheegay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo hore u joogay. ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay. xaaladda ayaa haatan degan hase yeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan waxay ka bilaabeen gudaha iyo nawaaxiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa xoojiyay weerarada ay ka fuliyaan shabeellooyinka waxaana ugu dambeeyay dagaalkii lagu hoobtay ee dhawaan ka dhacay Bariire iyo Awdhigle oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kale wararka aan ka helayno gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku soo waramaya in saaka halkaasi uu ka dhacay qarax xooggan waxaana qaraxaasi ka soo baxaya warar kala duwan. wararku waxa ay tilmaamayaan in qaraxa uu ahaa miinada nuuca dhulka la geliyo si gaar ahna waxa uu uga dhacay deegaanka Buurane ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaraxa ayaa waxaa la beegsaday gaari uu la socday taliyaha deegaanka Buurane ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dadka deegaanka oo diiday in codkooda loo adeegsado qalabka warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa lala beegsaday gaariga taliyaha deegaanka iyo ciidamo ilaalo uu ahaa. waxaa qaraxa kadib xigay rasaas culus oo markaasi ay tilmaameen dadka shacabka ee ku nool deegaankaasi inay ridayeen ilaalada gudoomiyaha ee qaraxa lala beegsaday. deegaanka Buurane oo qiyaastii 3 kilomitir u jira degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa saldhig ku leh ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi iyo ciidamada militariga Soomaaliya. ilaa iyo haatan lama soo warin wax khasaaraha oo ka dhashay qaraxaasi. ugu dambeyn ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa in howlgal qorsheysan oo si wada jir ah ay u fuliyeen uu ka dhacay deegaano ku dhow magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose
ee koonfurta dalka. howlgalkan ayaa si gaar ah ciidamadu waxay uga sameeyaan deegaanada lagu magacaabo Koban, Araare, Lafaha Ragga iyo Xarashiid halka lagu magacaabo kuwaas oo ka wada tirsan gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiyaha deegaanka Buule Gaduud Mudane Mahad Matabaan Buule oo u waramay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgalkaasi iyo ujeedkooda, waxaana uu shaaca ka qaaday in lagu dilay 10 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. Mahad Matabaan ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xubnaha markaasi ay weerareen isla markaana ay dileen ay isugu jiraan saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo ku sugnaa deegaanada markaasi ciidamadu ay ku jarmaadeen. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in howlgalladu ay sii socon doonaan isla markaana ujeedkooda uu yahay sidii looga hortagi lahaa weerarada ay soo abaabulaan ururka Al-Shabaab. si kastaba ciidamada hubinta ayaa bilihii ugu dambeeyay sare u qaaday howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya. guud ahaan waa inaga saaxiibayaal wararkii iyo xogihii ugu xasaassanaa aad kala socoteen Bahda TV.